kani waa geedka dhimashada. waa geed sumaysan oo aad u halis badan, weliba iyadoo roob da'ayo hoostiisa haddii aad istaagto geedkan dhacaankiisana jirkaada uu gaaro waxaad halis ugu jirtaa inaad geeriyootid. bal aan kuu sheego sirta halista badan ee ka dambaysa geedkan. marka hore, geedkan waxaa la yidhaahdaa mashineel. waa geed ka baxa lagana hela dhulal dhifi naadir ah kuna yaala daafaha adduunweynahan. waa kan ugu khatarta badan inta geed ee caalamka ka baxda. haddii aad taabatid geedkan wuu ku gubayaa, haddii aad cunto mirihiisa wuu ku dilayaa, haddii aad isku daydo inaad gubtana indhaha ayuu kaa ridayaa. 1999kii haweeney la yidhaahdo Nicola Strickland ayaa fasax u aaday jasiiradda Caribbean-ka ee Tobago. iyadoo iyo saaxiibadeed intii ay fasaxa ku jireen labadooda waxay heleen miro aad u qurux badan. miraha wuxuu ahaa miro ka dhashay geedkan halista badan ee dhimashada loo yaqaano. fadlan haddii aadan subscribe saarin channelkeena ama aadan follow soo dhihin barteena TikTok-ga, waxaan kaa codsanaynaa inaad nagu soo biirto kana mid noqotid dadkana gaarsiiya meesha aan doonayno. fadlan ku dhaqaaq, hadda ku dhaqso. haddaba aan dib ugu laabanno muuqaalka. qayb ka mida mirihii ayay cuneen labadooduba. daqiiqado kadib afka ayay ka dareemeen kuleel aad u daran. waxyar kadib neefta ayaa dhibtay labadoodaba. markii dambena xanuun daran ayay ka dareemeen qoorta, balse macal asaf waxay ku badbaadeen. qayb yar oo ka mid ah miraha ayay cuneen, sidaas ayayna ku badbaadeen labadooduba. geedkan markii la ogaaday halistiisa iyo dhibka uu geysanayo bulshada ayaa lagu dhejiyey digniintan hoos ku qoran oo ah: ha taabanin geedkan, waxaa ka buuxa sun, mirihiisa way sumaysan yihiin. hana istaagin geedkan hoostiisa iyadoo roob da'ayo, maxaa yeelay maqaarkaaga ayuu waxyeelayn karaa biyaha ka soo da'a geedkan. waa digniinta lagu dhejiyey geedkan dhimashada. geedkan waxaa laga heli karaa jasiiradaha Caribbean-ka, jasiiradda Bahamas, Mexico, qaybo ka mid a koonfurta Amerika iyo qaybo ka mid a gobolka Florida ee dalka Mareykanka. buugga lagu qoro diiwaanada la yaabka leh ee dunida ee Guinness World Record ayaa lagu qoray geedkan maadaama uusan jirin geed la mid ah sida uu yahay iyo dhibaatada uu geysanayo iyo halistiisa aad ku daran. waa geedka keliya abid taariikhda wax dila waxna dhibaateeya, inkastoo uu yahay mid ka mid a geedaha ka baxa dunida kuwooda ugu khatarta badan. iska jir geedkan haddii aad booqasho ahaan u tagto goobaha aan kuu soo sheegay. fadlan haddii aadan subscribe saarin channelkeena ama aadan follow soo dhihin barteena TikTok-ga, waxaan kaa codsanaynaa inaad nagu soo biirto kana mid noqotid dadkana gaarsiiya meesha aan doonayno. fadlan ku dhaqaaq, hadda ku dhaqso.